بسم الله الرحمن الرحيم. ولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دبادة جنال كان جيران محمد إبراهيم عمر. maanta barnaamijkeena waxaan kusoo qaadanaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo mahadcelin iyo hambalyo ku aadan ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan rabaa ka hor intaanan gudagelin waxaan rabaa janaalku waa janaal cusub. Haddii uu yahay markii koowaad aad daawato ama aad aragto janaalkani, fadlan subscribe, share, like intuba dhag noogu sii soo kuu soo gaaro casharada iyo barnaamijyada uu bixiyo janaalka. Bismillaahi rahmaani rahiim. Hadda dib ugu soo slide-ka barnaamijka maanta arabno ilaah mahad iska leh awalan. Midda labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ama barnaamijka maanta uu yahay inaan hambalyo iyo mahadcelin u diro dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, khaasatan ardayda form 4 ee sanadkan u fadhiisatay imtixaanka federaalka ah ama federal examination oo maanta in muddo in sugayeen natiijada imtixaanka ay kayso doonaan, kadibna ay arkeen ku farxeen. Run ahaantii aad iyo aad aan iga mahadcelinaa dadaalka aad sameyseen iyo qaadka aad u soo dadaasheen, aadna u sabarteen, aadna u sameyseen dulqaad. Run ahaantii waalid kasta wuxuu ka farxaa siduu ubadkiisa ku gaari lahaa meel sare meel dhexe ama meel sare. Maantana waxaa taagantihiin meeshii dhexe aad taagantihiin. Weli waxaan ii dhiman wada aad u dheer, rabtana in dulqaad iyo samir loo sameeyo iyo dadaal juhdi waqti lagu bixiyo. Maanta haddii dadaashay dadaalkaaga ha joojin, hor u sii wad. Haddaad dadaalayn had dadaalkaada hor u sii wad. Ilaa lacala janjaro waxaan janjaro waaye sida kal horeysa loo kala qaadaa micna loo kala koraa. Maanta taayinta janjarada 7aad weli waxaa ku dhiman soco ilaa aad ka gaartay janjarada 10aad ama janjarada 11aad ama janjarada 12aad. Markii ardayda Soomaaliyeed maanta run ahaantii sanadkan way ku duwan tahay sanadaha kale. Ilaa maanta aad iyo aad waa wax loogu farxo in ardayda dhammaan mid kasta natiijadiisa oo arko waa gudbay. Waxaa laga yaabaa hal iyo laba inay dhaheen inay tahay haray. Marka taasina waa arrin lagu farxo. Haddii aan nahay dhammaan macallimiin, waalidiin, qaraabo, asxaab waxaan idin leenahay waa dadaasheen, juhdi waqtiga ku soo bixiseen. Haddana juhdigaas iyo waqtigaas iyo dadaalkaas iyo samirkaas iyo dulqaadkaas aad ku soo bixiseenna wili jaanis haystiin meesha ka sii wada dadaala. Wili waxaa taagantiin buundadii aad taagantiin, wili waxaan isii dhiman buunda niga sii dhiman. Waxaa laga yaabaa in arday ama asxaab idinka hartay halo aad ku soo harteen. Wili waxaan isii dhiman waxaan rajeynaa saad u dadaasheen aad u garab qabateen inaad waxaan ii dhiman aad u garab qaban doontaan. Janaalkana markasta diyaar oo yahay waa nii taagan yahay. Dhan kasta aalad waniga caawi doonaan hadduu ilaahay ka raali noqdo. Marka inaad dadaashiin idinka la rabo. Mahadsantiin.